guud ahaanba Somaliland iyadoo ay soo dhamaadeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ayaa waxaa si weyn looga warsugayaa komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo la filayo inay shaaciyaan natiijada musharaxiinta guuleystay. Haddaba guddida komishanka gobolka Saaxil ayaa ka waramay xilliga ay sheegi doonaan natiijada iyo ku dhawaaqista musharaxiinta guuleystay. bishii 6 2021 waxaan ku sugannahay xarunta guud ee gobolka Saaxil oo ay runtii tahay maalintii ay maanta ka bilaabantay tirinta codadka ee heer degmo iyo guud ahaan gobolka Saaxil sidoo kalena ay ka bilaabantay degmada Sheekh sida aynu ognahay waxay socon doontaa tirintaasi ilaa inta ay ka soo gabagaboobayso maadaama goobaha gobolka Saaxil muddooyinkii ugu dambeeyay ee aad u sii kordheen 92% ay kordheen degmada Berbera oo kale sanadooda aynu hadda tirinaynaana marka la isku daro guud ahaan gobolka degmada iyo gobolku ay tahay ilaa 480 sanduuq oo kala ah golaha deegaanka iyo baarlamaanka inkastoo aynu ognahay saxaafaddu inay warka aad u xiiseynayso haddana waxaynu ku jirnaa inaynu hubinno aynu aadna u hubsanno natiijada ay ku dhawaaqayaan komishanku marka ay u cadaato oo ay soo gabagabowdo natiijooyinkaasi waxa hadda ku sugan xarinta guud ee komishanka saddexda xisbi qaran oo eeganaya natiijooyinkii isu geysanaya isla markaana in hubinaya in natiijo kasta oo ka timi sanduuqu ay runtii u timi qaab hanaan wanaagsan shalay bay inoo soo dhamaatay dhammaan sanduuqda gobolka Saaxil maantana waxa la guda galay in ay la tiriyo la eego iyagoo goobjoog ka yihiin xisaabta qaranku natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka la isu geeyo gobolka dhamaantii labadiisa degmo ee Sheekh iyo Berbera haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhamaato dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oo la degdegin lana sugo inta ay natiijada kama dambaystihay soo baxayso natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto waad arkaysaan waa meel xiran cidi aanay galeyn cidda kaliya u igmanna ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan insha Allah markay soo axarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka degmooyinka biidnillaahi kariim oo isugu soo noqon doona. Assalaamu calaykum. Waa Xamse Jaamac, telefishinka caalamiga badda cas 24 magaalada Berbera.